inta nolosha kugu dhiman hadafna ka mid dhali dhimashada horteed noqon dhaxal ruux ka tagi kara dhalinyaro waxaad barataan inaad u socotaan sida diinka balse jid saxan aad haysataan halkii aad u socon lahaydeen sida deerada dheeraysa balse jid qaldan aad haysan lahaydeen muhiimna maaha inaad dulqaad yeelato si aad u noqoto qof weyn waxaase muhiim ah inaad dulqaad yeelato si aad u noqoto qof ahaan iyo miisaan ahaanba weyn maskaxda aadamuhu waa ta ugu qaalisan nimcooyinka ilaahay nagu galaday inkastoo xajmi ahaan iyo miisaan ahaan maskaxdu iswada leeg tahay haddana waxay ku kala duwan tahay xagga wax soo saarka taasina waxay ku xidhan tahay kolba qofku siduu u adeegsado siduu jidhkeenu ugu baahan yahay cunto oo hawlmaalmeedkiisa ku qabsado ayay maskaxduna aqoon u baahan tahay cilmigan cirka lagu tegay iyo sayniskana iskama iman intaa rag baa fikirayay kana fikirayay inay wax soo kordhiyaan iyagoo adeegsanaya maskaxda iyo cilmiga xilligana dunidu way guurtay oo waxay u guurtay dhanka tiknoolajiyadda casriga ah inay la guurtaan baa laydinka doonayaa idinkoo waxyeelada tiknoolajiyadda iska ilaalinaya waxtarkeedana isku ilaalinaya waayo dagaalada dadka lagu soo qaado dhinaca maskaxda ayay qayb ka tahay